ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. soo dhawaada dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel bood joogtaan. maanta waxaan halkan ka bilaabayaa duubista maadada physics-ka class-ka 12aad. cashirkeena koobaad waxa ku saabsanaa doonaa periodic motion, socod kaleed aan u qaybi doono labo, oscillatory motion iyo non oscillatory motion. qayb socod walhadeed iyo qayb aan ahayn socod walhadeed. oscillatory motion waxa uu sii qaybi doonaa insha Allah simple harmonic motion iyo non simple harmonic motion. cashirka wuxuu ka koobnaa doonaa definitions qayaxaadyo, examples tusaalooyin iyo formulayin aan ku hormarno periodic motion iyo oscillatory motion. Periodic motion socod kaleedku is any motion that repeats itself in a fixed path after a fixed time. Periodic motion waxaa la yidhaahdaa socod kasta oo soo noqnoqonaya, maraya waddo go-an, waqti go-anna kusoo dhammaystirmaya. markaan fiirino shaygan goobada ku dul socda wuxuu marayaa waddo go-an, waqti go-an ayuuna kusoo dhammaystirmayaa, waana repetition wuu soo noqnoqonayaa. marka haddii aan tusaale kale fiirino socodka gacmaha saacadda, gacanka sheegaya daqiiqadda, markaas wuxuu kasoo dhaqaaqayaa 12 wuxuu soo marayaa waddadan wareegsan, 12 kusoo noqonayaa waqti go-an kadib 60 daqiiqo kadib. marka waxay tusaale u tahay periodic motion. haddii aan tusaale kale soo qaadano, walhadahani wuxuu ka dhaqaaqayaa khadka guduudan dushiisa, dhinaca midig ayuu tegayaa meel uusan dhaafi karin, wuu soo noqonayaa bidix buu tegayaa, sidaas uu soo noqnoqonayaa, aakhirka wuu istaagi doonaa halka uu ka dhaqaaqay. laakiin hadda wuxuu sameynayaa socod meel waddo go-an buu maraya, waqti go-an uu soo dhammaystirayaa. waa periodic motion. tusaale ka haddii aan soo qaadano shay moolla ku xidhan oo kale, shaygu markuu meeshii uu taagnaa ka dhaqaaqo, bidixi midig u dhaadhaafayaa, meeshii awel uu joogay aakhirkan uu istaagi doonaa, wuxuu marayaa waddo go-an, waqti go-an uu soo dhammaystirmayaa. waa periodic motion. afartan tusaale ee aan halkan ku qoray, labadaa dambe marka aan si gooniya u fiiriyo waxaan arkayaa marka hore inuu shaygu joogay meel uu ka dhaqaaqay baa jirta, bar uu ku nagaa baa jirtay oo la yidhaahdo barta nagaadiga ama equilibrium position. tusaale shaygaa moolada ku xidhan meeshii awel uu joogo buu ka dhaqaaqay, dhinaca midig uu dhaafay, wuu soo noqday, dhinaca bidix ayuu soo dhaafayaa, mar kaleeto xirifi uusan dhaafi karnaa jiro bidixi midiga, meeshii awel uu joogay uu horeega u dhaadhaafayaa. waa back and forth from the equilibrium position. kanna waa la mid, walhadahani meeshii awel uu joogay uu bidixi midig u dhaadhaafayaa. socodka noocaana ee bar nagaadi leh oo dhaadhaafaya leh yaa waxaa la dhahaa oscillatory socod walhadeed. periodic wuu yahay dabcan, laakiin labadaa hore dabcan mooladan hadda jiiftax bay u xihan tahay, joogna waa loo xiri karaa sidaan oo kale. marka meeshii uu ku nagaayo buu u dhaafayaa shayga kor iyo hoos, up and down weeyaan. marka oscillatory motionka aad maqlayay sida waa un periodicii oo loo sameeyey bar nagaadi uu shaygu dhaadhaafayo. labada tusaale hore ee gacanka saacadda iyo the earth around the sun, labadani ma laha bar nagaadi ay kor iyo hoos u dhaadhaafayaan ama bidix midig u dhaadhaafayaan ma leh. okay, marka waxoo dhanba oscillatory, waxoo dhanba periodic motion way yihiin, laakiin labadan dambe ayaa oscillatory ah oo bar nagaadi shaygu dhaadhaafaya. very good. marka periodic motionka amba socod kaleedka waxaa loo qaybiyaa qayb oscillatory ah iyo qayb aan oscillatory ahayn. okay, waxaad ogaataa oscillatory motion markaan qayaxayno waa to and from motion, waa socod meel tegis iyo kasoo noqosho ah oo an object shaygu sameynayo from its mean position, meeshii uu ku nagaa ayuu shaygu dhaadhaafayaa. sidoo kale waxaad ogaataa oscillatory motionku is a type of periodic motion, waa nooc ka mid a socod kaleedka. marka afartaa tusaale ee halkaa igu qoran kulligoodba way yihiin periodic motion way yihiin kulligood, laakiin labadaa dambe bis ayaa waxay yihiin oscillatory. waxaan dhihi karaa marka labada oscillatoryga periodic way yihiin, oo oscillatory motion kastaahi periodic wuu yahay, laakiin periodic motion kastaahi ma aha oscillatory. marka waxaa weyn periodic motionka weyn, oscillatoryga ayaa faraca. very good. and frequency and period of periodic motion, rakaadka iyo kalka socod kaleedka. frequency waxaa la dhahaa number of cycles made in 1 second, inta wareeg ee uu shaygu sameynayo halkii second, inta wareeg uu shaygu sameynayo halkii second.
frequency-ha f aa loo soo gaabshaa waana number of cycles inta wareega shaygu sameeyey loo qaybshay time taken waqti uu ku sameeyey dabcan definitionka iyo formula waa is leeyihiin SI unit halbeega frequency wuxuu noqonayaa hertz ama per second ama s lagu jibaara -1 sta hoos kore jibaarkeeda hal haddaa korgeysana jibaarka -1 noqonaya halbeega waa hertz frequency period amba kalka waa time taken to make one complete cycle waqtiga ay shayga ku qaadanayso inuu sameeyo hal wareeg ayaa waxaa dhahaa period amba kal formulaha periodka t capital loo soo gaabshaa waa time taken loo qaybsha number of cycles si kala daawo fiirisana waa formula frequency-ha oo la kala rogay time taken taa kor la geeyay number of cycles hoos la keena halbeega periodkaahi waa second waxaad ogaataa frequency-hu waa rogaalka periodka markaad frequency-ha kore fiiriso formulaha hoose period fiirisana formulihii hoose ayaa number of cycles kor la geeyay time taken hoos la keena markaad tiidan dambe fiiriso oo periodkana frequency hore unbaa la kala rogay marka haddaad mid haysato kan kale wuxuu noqonayaa rogaalka tusaale markaad haysato frequency oo 3/2 ah lagu diro period 2da korgeey 3da hoos keen period waxay ku noqonaysaa 2/3 go ahead examples aan tusaalooyin ka bixino frequency-ha iyo periodka socod kaleedka very good marka it connected yes it's connected very good all right tusaalaalkan iigu qoran ayaa wuxuu leeyahay a suspended mass shay meel ka soo laalaada ayaa makes wuxuu sameynayaa 60 complete cycles 60 wareegoo dhammaystiran buu sameynayaa in 15 second muddo 15 second ah what is the period waa maxay kalka and the frequency iyo rakaadka of the motion socodka shay meel ka soo laalaada tusaale ahaan maybe inuu moole ku xiran yahay shayga waa kaa wuxuu sameynayaa meeshii uu joogo ka tegayaa dhinaca midig buu tegayaa dabcan meel uusan dhaafi karin buu gaarayaa wuu soo noqonayaa meeshii uu ku nigaa ku soo noqonaya laakiin bidix uu sii dhaafayaa bidixna meel uusan dhaafi karnaa jirta wuu soo noqonayaa meeshii uu ku nigaa sidaas uu sameynayaa ilaa 60 times marka waxaa lagu siiyey markaad solution solve aad raadinayso solutionka cycles ama inta wareeg ee shaygu sameeyey waa 60 wareeg buu sameeyey timeka uu ku sameeyey ku qaadatana waa 15 second 15 second waxaa lagaga baahan yahay waa inaad soo saarto period oo t capital loo soo gaabiyo marka haddii aad period formula xasuusato waxay eeday time taking loo qaybshay number of cycles time taking baa koreeya oo 15 second aad kor maraysaa number of cycles ku waa 60 inta haddaa isu qaybiso waxaa kuu soo bixi doona koreas 15 waa 0.25 ama rubuc second okay halkii wareeg waxaa lagu soo dhammaystirayaa rubuc second b waxaa lagaa doonaya waa frequency marka period kumbaad kala rogaysaa 60 kaa korgey 15 secondna hoos keen simply haddaa intaa isu qaybiso waxaa frequency wuxuu kusoo bixi doonaa 6 loo qaybshay 15 waa 4 halbeega frequency waa wuxuu ah hertz very good okay next example aan fiirino wuxuu ku yahay if your heart rate is 150 beats per minute what is the time per beat in seconds haddii garaaca wadnahaaga uu yahay 150 jeer halkii daqiiqo waqti intee leeg ayaa ku soo aadaya halkii garaac marka waxuu ka rabaa time per macnaha u qayb waa time per beat halkii beat amba halkii garaac waqtiga ku soo aadaya timeka aad haysato waa 1 minute per minute hal minute waa 60 second haddii second loo bedelo sababtoo timekaas in second aad u rabaa marka second loo qaybsho beatiskuna waa 150 beat very good
haddii aad intaan isu qaybiso waxaa kuu soo bixi doona where is my niic here is my niic 60 loo qaybshay 150 waa 0.4 is point second per beat halkii beat waxaa ku soo aadaya 0.4 marka time per cycle beatka wuxuu cycles uu la mid yahay maxaan waa period dabcan albeega dad firis waxaan waa period marka halkii beat 0.4 second baa lagu sameeyey very good aan hore u soconno waxyar very good tusaalaha qaybtani waa page 5 waana practice su'aala meesha ku xusan oo aad inaad ka shaqaysa la doonaya weeyaan su-aasha koowaad ayaa waxay odhanaysaa what is the period of 60 hertz electrical power waa maxay kalka xoog koronto oo rakaadkiisu yahay 60 hertz marka 6 frequency lagu siiyey oo 60 hertz ah very good waxa lagu dirana waa periodka wuxuu ahaa jiriyey rogaalka frequency 60 hertz 60 hooseeda hal waa hoos hal korgee bis 60 gana hoos keen halbeega second ka dhig that's all waa su-aasha koowaad su-aasha labaad ayaa waxay tahay if a turning fork haddii fralayer takes 2.5 times 10 to the minus 3 second ay ku qaadayso waqti intaan la eg to make one complete cycle in hal wareeg sameyso soil frequency turning fork waa fargeyto laba farood leh oo qolada musica garaaca ay isticmaalaan sameynaysa gariir kala duwan markii jug la siiyo marka time baa lagu siiyay hal wareeg ku sameynayso timeka lagu siiyay waa period hal wareeg waqti lagu sameeyo period weeyo periodka marka wuxuu yahay 2.5 times 10 to the power minus 3 second waxa la doonayo marka waa frequency intaan hooseeyo hal weeyaan halka korgey kaliya 2.5 times 10 to the power minus 3 dana hoos keen simply waxaa kuu soo bixi doonta inta kuwatar geliso 400 hertz amba haddii centimeter uu qoro 4 times 10 to the power 2 hertz boqolka 10 power 2 waa boqol un 400 ku dhafna waa 400 very good su-aasha saddexaad ayaa waxay odhanaysaa faadima gabadha la yidhaha ayaa fibratis waxay gariirsiisay macnaha waxaan ka wadaa waxay sababtay inuu gariiro harmonic oscillator shay sameynaya socodkii ahaa back and forth and makes marka shayga wuxuu sameeyey markii la dhaqaajiyey 40 complete cycles 60 wareeg buu sameeyey in 10 second muddo 10 second ah soo saar periodka wuxuu ahaa t capital loo soo gaabinayay time taking oo 10 second ah loo qaybshay number of cycles oo ah markaa 40 haddaa intaan isu qaybayso waxaa kuu soo bixi doonaa in halkii wareeg lagu sameeyey 0.25 second amba rubuc second very good markaad doonayso frequency simply wuxuu ahaanayaa 40ga korge 10 secondna hooskeen very good marka waxaa kuu soo bixi doona frequency inuu yahay 40 over 10 4 hertz that's it su-aasha afraad haddaan halkan ku cariiriyo waxay leedahay haddii pendulum walhade uu sameynayo 23 wareeg 58 second gudahood soo saar frequency waata waa number of cycles oo 23 ah loo qaybshay time taking oo 58 ah halbeeg waa hertz markaad doonayso period 58 uun kor mari kaliya 23 kana hoose ka dhig halbeeg waa second haddaa isu qaybso decimal baa kuu soo baxaya intaasay ku egtaa waan idin salaamayaa saaxiibayaal nasiib wacan daawasho wanaagsan meel bay joogtaan isla socod wanaagsan waan ku salaamayaa